ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ugu shukrinaynaa guushii una gaarsiiyey asbuucyada la soo dhaafay jabkii weynaayo khawaarijta al-shabaab lagu gaarsiiyey gobollada kala duwan ee dalka. waxaan u mahadcelinaynaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan Jubbada Hoose iyo ciidanka daraawiishta Jubbaland oo cibaadaystay oo u aaray qof kasta oo Soomaali ah ama qof kasta oo Muslim ah oo xaq darre ay ku dileen khawaarijta al-shabaab. asbuucan waxa u aaray dhaxdiisa ciidamada qaranka mujaahidiinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada daraawiishta Jubbaland. waxaan leenahay ma la yashkurina salaa yashkurullah. qofka aan dadku mahadcelin ilaahay ma mahadceliyo waa idin mahadcelinaynaa waa idin duceynaynaa waa idin bogaadinaynaa. howlgalkaas halkaas ka dhacay weerarka gaadmada inay soo qaadaan damceen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa daraawiishta Jubbaland ay fashiliyeen ayaa waxa lagu gaarsiiyey khasaaro 200 oo maleeshiyada ku dhow markii la isku daro dhimashada iyo dhaawaca iyo maxaabiista oo isugu jira Soomaali ajaanib. waxaan leenahay marka qof kasta oo Soomaaliya oo dhibana u ah khawaarijta al-shabaab ha ku bishaareysto jabkii gaar khawaarijta al-shabaab. sidaas oo kale xudur meel u jirta 20 kiiloomitir ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 9aad qaybta 6aad waxay ku cibaadaysteen dhagarqabayaal ka tirsan khawaarijta al-shabaab. halkaasna waxa lagu dilay horjoogayaal iyo dhagarqabayaal ayaa lagu dilay waxaana lagu furtay hub. sidaas oo kale markii Jubbada Hoose dib ugu laabto waxaa lagu furtay hub ka badan 100 qoray oo isugu jira hoobiyaal AK47 iyo BKM iyo sabano ayaa halkaas lagu furtay waana lagu cibaadaystay. waxaan rabnaa marka inaan shacabka Soomaaliyeed guulaha aan gaarayno ay ogaadaan ciidamadan ay ugu mahadceliyaan sababtoo ah waxa ciidan u yihiin ayaga waxay difaacayaan waa ayaga waxay difaacayaan waa nafta iyo maalka iyo cirdiga ummadda Soomaaliyeed ay difaacayaan ayagoo fartoomaya xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam man qutila duuna nafsi fa huwa shahiid man qutila duuna cirdi fa huwa shahiid man qutila duuna maali fa huwa shahiid. qofka asagoo difaacanaya nafsadantiisa la dilo waa shahiid qofka asagoo difaacanayo maalkiisa la dilo waa shahiid qofka asagoo difaacanayo cirdigiisa la dilo waa shahiid. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa qaranka iyo kuwa maamul goboleedyada waxay difaacayaan iyo xoogagga difaaca deegaanka oo ah dad shacab ah oo isu xilqaama in cadawga iska dul qaadaan waxay u halgamaan waxay tahay in la dagaalamaan khawaarijta al-shabaab. sidaas oo kale horjoogayaal ayaa isku soo kala dhiibay ururka 26aad guutada 6aad qaybta 6aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. horjooga lagu magacaabo horjooga Maxamed Cabdi Caraaye oo 12 sano ka tirsan khawaarijta oo maaliyad u qaabilsanaa ku magacaabna Kuntuwaarey ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ku sugan Buulamareed isku soo dhiibay. sidaas oo kale horjooga lagu magacaabo Khaliif oo ayaa isku soo dhiibay guutada 3aad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. horjoogayaashii maalmahan ugu dambeysay soo dhiibayay ahayd asbuucan waxa shacabka Soomaaliyeed farxad ugu filan guulihii laga gaaray Bakool iyo Jubbada Hoose. asbuucii la soo dhaafan waxa farxad ugu filan Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud guulihii laga gaaray. asbuucan soo aadan waxaan rajeynaynaa in jab weyn lagu gaarsiiyo khawaarijta al-shabaab. waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay u soo jeesteen sida ay idin baabi'i lahaayeen idin xasuuqi lahaayeen intii aysan gacanta geesiyaasha idin soo gaarin shacabka iyo dawladnimadiina dib ugu soo laabtay. aad u mahadsantiin. billahi tawfiiq.